الله بيا وبقر واسرا وحنا سوى نب هي marka alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkii baabuurta isku jiraya marixin waa ka baataynigeeda yeerayo taasas loo kala yaacayo fataa kaaga soo gaari jirinda asiga ka daran asigi shan dad lagu tagi jiray baatu waa laba kun waa faraxsana maanta farxadeena ma soo koobi karo hadaa bajaajleena gaar ahaan si gaar bajaajley dhigo qabtay tarbuuna jaamna kanay marka la maraan inta la maraa inta daal fure waxa leeyahay faale aroos moongab aroos wale dashaas ka mita ay gurtay labadii dhagal itaalay noocaas ah baa mid lugta fee koobta xigtay iskaalamitaba baytay wala leexday baabushu iyada bayar marka dhinka iyo cariiriga markaas dhagaxa ay dhibka uu lagu hayay bay ahayd baafurku wareey waa helay waxaan codsanaynaa in ruux walba oo dhagaxyaalada laga qaado waxaan idin kala soo hadlayaa bartamaha isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir dabcan wadadan waxa ay tahay center ama bartamaha magaalada waxa jira wadooyin ka kala imaanaya wadada Digfer wadada Sodonka wadada Wadnaha iyo wadada Cabdilqaasim isgoyska Tarabuunka marka aad maqasho waxa kugu soo dhacaya saxmad iyo jaam iyo kacar balse isbedel ayaa dhacay isbedel taaba galay ayaa dhacay waxaana hirgalay mid ka mid ah ballanqaadidii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Mungab gudoomiyaha ayaa dhawaan ballanqaaday in dib loo furi doono wadooyinka muhiimka ah ee dhagaxaantu ay ku xiran yihiin waxaan idin kala soo hadlayaa wado marinkeedu muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadka waxayna xirneed in muddo balse hadda dib ayaa loo furay waxaan dhex taaganahay wadada ka timaada isgoyska Banaadir ee sida tooska u tagtay isgoyska Tarabuunka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho 3 sano ay wadadan xirneed maanta dib ayaa loo furay waxayna shacabka kala duwan ee isticmaala wadadan kuwa deganba ay dareemayaan marka la fiiriyo farxad maadaama ay sheegeen in furitaanka wadadan ay qayb ka ah dadaalada uu wado maamulka gobolka Banaadir wadadan isku socodkeeda horay ayuu muhiim u ahaa waxaana ay caqabad ku ahayd dad badan oo Soomaaliyeed maadaama zaxmad iyo jaam laga dareemi jiray isgoyska Tarabuunka oo ah bartamaha magaalada qaar ka mid ah dadka deegaanka dadka sida weyn u isticmaala wadadan iyo kuwa wada gaadiidka kala duwan sida gawaarida iyo mootooyinka oo la hadla Shabeelle waxa ay ku sheegayaan in furitaanka wadadan ay tahay mid muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka kala duwan ee ka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho waxaan balyeynaa jaamka iyo dhibaatadii haysatay oo xalay iyo maanta laga arkay Tarabuun jaamkii oo yaraaday dadkii oo nafisay bini'aadamkii meelay maraan waayeen baabuurtii dhibaatayday dhiiqo iyo dardariyo alxamdulillaah ilaahay ugu mahadnaqaynaa iyo dawladdii noo furtay ilaahay waxa uu malay inta isgoos iyo inta luuq wax taalla inay ka qaadaan dadka dariska meel ay mootooyinka soo gashadaan raashinkii keesadaan meel looga galo bukaankii meel laga qaado waa la waayay hadda insha allah tii wareeyay baafurku wareey waa helay waxaan codsanaynaa in ruux walba oo dhagaxyaalada laga qaado hadda waxaan la furay isgoyskii baalkii Digfer oo wadnaha ay oo dib intay nagu haydaan meel la maro la waayay meel aan soolar ku tagi jirnay waxa laga dhigay $2 dadkii bukaan waa lagu jiray wala lagu waayay iyo dadka waa laga celinayay marka alxamdulillaah ilaahay hadda waxa dhacay waxa la furay jidadkii inta dhiman la furaa rabnaa wadadan ina la furo wallahi billahi taala boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaa ninka fure guul aaleenaanay oo gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Hodan waxa leeyahay hambaliyo inta ka dhiman hal furo waa faraxsana maanta farxadeena ma soo koobi karo hadaa bajaajleena gaar ahaan si gaar bajaajley dhigo qabtay tarbuuna jaamna kanay marka la maraan inta la maraa inta daal fure waxa leeyahay faale aroos moongab aroos waa leeyahay inta yaran hal si furo waa ku faacsanahay shaqadan oo loo qabtay gudoomiyuhu wadada rabta anaga hadaan shacabka meesha degan laba lacag naga bixi jirtay anigu waxaan kamid ah ganacsatayaalka degan Tarabuun laakiin mar waxaan deganahay markii aan raba Banaadir halka baan ka soo raaci jiray mootalka baa uga degi jiray isla waa lagu jiray afka Digfer baan ka raaci jiray alxamdulillaah rabbil caalamiin habeenkii xalay 3 jeer baan meesha imid
وهو وبقر واسرا وهم سوى نب هي marka alxamdulillaah rabbil caalamiin dadkii baabuurta isku jiraya inta dhimanna waxa la yahay kafur aad u wanaagsan yahay alla inay guuleyso hadii ninkii wada sameeyay ajar baa u socdo taliya aqro waa laga soo xusaya ninkii cariiriga markaas dhagaxa ay dhibka lagu hayay bay ahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin hadii ilaahay naga qaaday hadda meesha waxa yaala waa loogaa salama marigsin waa ka baataynigeeda yeerayo taasas loo kala yaacayo fataa ka soo gaari jirinba عاسي كبرت عاسي شن دبل اللي قلت بتربات والله أكل والله بالله تعالى الحمد لله بقولك بقولك في عالم فرحوا والله تعال جنبك وتربونك سمعت بدنا الحمد لله عاد إلهي نوفي وهي متقارئ أنا يقابل إلهي متقارئ جلاسيو دولدنا ودولدنا وتاجر سلام مقص قرار تاجنا هاي كل هول مكوكو مسيح مثل دام جيد كفرنا ودبر وأنا جيد كذا قال الله فرو تسع وصلنا ما دام ولا متريا بدنا العين يجري بدنا الهدايا متقارئ بالوجه رجال يجري رفض لا بس عصدك أبيجرنا هذا الحمد لله غفر ما تقصد يقول هذا وأنا صومنا إن كاسو عليا ودني كوالي لدافري مقديشو قبل كبرادي هذيك دمسباس sida durduraan ku hayn taasoo ka dhigan inuu yahay isku xiraha joogtada ee aan hakadka lahayn xirmada toddobaadlaha adeega dhammaysbaas waxaa kugu dhan internet xawaarihiisa la hubo iyo ku hadal aan xadidnayn oo ay ku dheertahay IPTV dhammaysbaas waa mid aan kala gool lahayn oo kuu fududaynaya inaad la xiriirto adduunka oo dhan ku shubo kaliya 25 senti kuna isticmaal internet iyo ku hadal muddo toddobaad waxaana ku dheer nashaad IPTV oo ah isku xiraha madadaalada casriga uga shubay dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal afargees dhamays xawaare sare isku halayn joogta iyo adeeg ka tarjumaya baahiyahaaga casriga